السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel kastoo kusoo dhawaada Istanbul official ay idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaan saako waxaan rabaa inaan ila wadaago sheekooyin waxyaabo iska sheeko ah oo laakiin maxaa la dhahaa aan rabo inaan idinkaga faa'iideeyo haddii sheekooyin noocan camal aad rabtaan ama aad ka heshaan fadlan hoos ku soo qor si aan waxyaabo fara badan oo sheekooyin ay idinku soo geliyeedana waxaa kale aan rabaa haddana inaan maanta sheekooyin iska duubo ama sheekooyin aan ila wadaago sheekada waxay ku dhacaysaa sheekada magaceedu waxaa la saddexdii ka sireeday kaca la dhahaa sheekada saddexdii ka sireeday muddada ka kaca ama kaca sheekada marka waxaa lagala jeedaa ama waxaa lagala dan leeyahay magaceedu waa dareemi kartaan aan umaleynaa sheekadan beri baa waxaa jiray gabadh iyo aabaheedii gabar ayaa marka aabaheedii beri laga soo doontay markii gabadhi laga soo doontay ayaa ninkii aabihii wuxuu ku xujiyey 100 neef iyo baraqabtiisii inuu ka bixiyey gabadha ninka kale xoolo muusan haysan 100kaas neef iyo baraqabtiisii bis xoolo dhan uu ka haystay dan ninkii 100kii neef iyo baraqabkii gabadhi waa uu ka bixiyey oo hantidii dhan uu ka keenay kadib ayaa waxaa dhacday gabadhii in loo aqalgeeyo oo gurigii loo aqalgeeyo gurigeeda ama gurigeedii ayada runta ahaa in la geeyo oo kii aabaheeda martiga ka aheeday kii runta waxaa kii guriga runta waxaa guriga xaajin waaye oo kayga runta la geeyo kadib ayaa waxaa dhacday muddo laga joogay ayaa aabahii soo martiyey gabadhii soo martiyey gabadhiina wax maysa iska haysan ninkii 100kii neef oo keliya bis uu xili xoolo ka haystay 100kaasina waxaa waaye waaba laga qaatay gabadha markuu doonanaya wax in laga shubtay kadib maalin maalmaha ka mid aabihii markuu soo martiyey ayuu wuxuu u maaday baaro abaaro 10 saac ay bar camal kadib ayaa waxaa dhacday gabadhii inay odaygii markuu imaado oo isdhehayso oday bulsheed ayay ninkeedii imaaday kadib ay tiri aabaa soo martiyey banaanka hore way ugu maxaa la banaankii intuusan guriga soo galin banaankii ay ugu hor timid kadib markaasi waxay dhahday aabaa imaaday oo marti ah cawadana wax guriga la qalama yaalo oo soo keliya taalo waxaa loo baahan yahay ama waxaa la rabaa in wax cuno aakan suulan waxaa soo waa maanta magaalka maqnaay ee guriga bandhigi kadib ninkii markuu inta ku jiro markaas ay fikirtay meelay fadhiisay fikirtay markaas ay soo dhacday mid diris ay ahaayeen oo saan ugu dhigo jaarka ahay oo sagaaro dabo ee markii ay haysteen hebel raadi bal waxaa ku dhahdaa sagaaro hebel oo ikeen lacagta gadaal ka siinaa intaantii saacay bis waa baxday ninkii diriska hay ee aad albaabka u qaracday oo dadka kadib xitay hebel iyo waran fiican ee salaan kadib markaas ay xitay hebel oo biyaha waxa ka raba ama arina ka raba inay ii sameyso markaas wuxuu yiri maxaa waaye markaas xitay aabahay oo soo martay ay joogo odagayga ama xaajigeena wax muusan haysto oo maanta shaqo muusan wax muusan soo helin maanta waxaa rabaa inaa maxaa la dhahaa ceebteen asturto ceebta Allah asturto ninkii sagaarada wuxuu ku yiri walaasheedii aan wax deen la dhahaa inaad bixi mar rabo ama inaad dhiibo mar rabi waxaan rabaa lacag inaa isiiso kadib sagaarada aan ku doono markaas tir lacag tahay salaam hore ku keen lahay markaas uu yiri lacag ma haystid miya maya lacag ma haystid istaxmil ku celiyo markaas uu yiri okay waa ku doonaa laakiin adiga naftaada u baahanahay markaas tir aniga nafteeda ma u baahantahay haa istaxmil ku celisdan aniga nafteeda u baahanto ani say rabtaa markaas uu yiri ana ku sheego dan waxaan ka rabo naftaada ku baahanada ku dhamo inaad hanto waay markaas uu yiri hay way diyaar waay sagaarada marka u keeno wuxuu yiri sagaarada farta ka saaway ila balan ay waqtiga imaan lahayd yiri markaas uu yiri cawada 3 saac amal ay tir guriga aqalka imaa oo aabaheeyii iyo odageeyii iyo azuumaya adiga dhinaca laga soo qayb gasho waaya markii cuntada caloosha ku buuxin markaas kadib guriga gadaashiisa ugu sug hawsha alaabta marka soo dhaqdo ama wixii aad soo qabtay kadib banaanka ku soo baxa waxa la waxay rabto soo ku sameyn doonaa markaas wuxuu yiri haye way diyaar ahay 3 saac markii la gaarnaa kan sagaaradii ay ka sameysay marqa ka sameysay صورتي هي اللي بمرقة للسبيل لا توصل لباشي كذي بس 3 ساعة مركي اللي قال يا حدا عب ما أضرب عفانك إنه هي مرفوع مسكسو بالبيئة كده عفانك سجاري وبس ما هو بالآن تعود وحباه اللي ساي كذي هو إمادة بريء مركو إمادة أبهدي إنين كذي يا أبهدي إنين كذي إنين كسجارة أيضا هي الأفرق فضواي cuntada u
diyaarisay kadib ayada gambaray soo qabsatay aabihii ninkii iyo maxaa la ninka ayada qabay ee isku dartay oo sababtii u keentay markii sababta ee cunaayay kalbar mar ayada gambaray soo qaatay meel u fadhiistay markay sababta nin walba oo ku jiro markaas ay xidhay saddexdii ka sireeday kaca markii kadib markaas tir aabihii shakiya automatic galabjo aankiisa dhamaad waxa ku xagwali maxay ku keentay maxay ku tiri saddexdii ka sireeday wixii aan ninkeeda iska caadi iska tii sagaarada wax iska moogay laakiin warkii maanta oo dhan aabaheedii oo ku soo naafaya markuu cuntada dhameeyay oo farxashtay oo wuxuu yiri aabo maxaa ku keentay saddexdii ka sireeday kaca markaas waxay tiri aabo ana waxaa ku keenay tiri ninkan boqol neef barqabkiisa wuxuu ka bixiyay ku xujeysay inuu gabadha ka bixiyay tiri boqolkii iyo barqabkiisana gabadha uu ka bixiyay xoolo kale muusan haysan oo dhahay adigana waa inuu soo waxaysan inuu waxa laga rabo xoolihii intaas ah inaa wax ka siiso maadaama uu soo waxaysan ninka adig maadan ka siin xoolihii dhan waa qaadatay midkaana subxaanallah boqolkii neef iyo barqabkiisii ayuu wuxuu ku iibsaday gabadha ku badashtay kan saddexaad waa ninka sagaarada dabaayo waxay tiri aabo kan saddexaad ku sheegay tiri kan saddexaad boqolkii neef iyo barqabkiisii gabadhaas oo intaas dhan laga bixiyay waxaa weeye ninka dabacaa isagana oo isiiri bal qaado ay xafaantaan sagaarada oo u samaysay kadib la kaca kadib waxay istii boqolkii neef iyo barqabkiisii nin dhanaa xoolihii inta cabeero intaasoo kaga soo bixay tiri ninkii raba inuu si fudud wax walba kaga samaysta gabarnay tiri subxaanallah kadib xarfaankii sagaarada aabada horta gacanta hoos madaxa u saaray ninkeedii hadalkii dhinaca ku dhiga xarfaankii sagaarada ee kusii harta asagana wuxuu siri bis waa dee ku soo tushtaan buu odagii iyo ninkeedii may ku dilaan camalo kadigiisa soo qabsada meel yaale tartiib rug fakatax albaab oo no soo wada dhawaada like share comment subscribe isaan hadda soo ku saarnay gombolka fadlan furo oo dhacdhacsi waqti yar leh waa inta markaas xabteen xalnay soo wada dhawaada meel kasta oo dunida ku joogtaan maalinta idin wacnaataan ilaahay